السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك كسو دبدا جانالك فوغانشو فضلا هجي أتوقع سبتا جانالك سبسكرايب نصاب أديقو شير قرينا مقال كان ما انتهى برنامج كينو عيوان كيس آياء مجيران وضمان نلمد دينعا شقلا أنت هدينو نهي صومالي هذا بقى برنامج كينو عيوان وقود قلنو dunidan ma jirto wadan ay shaqo la'aantu tahay eber laakiin waxaa jira wadamo shaqo la'aantu ay ku dhowdahay eber sida wadanka Qatar oo ah 0.2 boqolkiiba iyo wadanka Singapore. Haddaba wadamada nala jaarka ah way kala duwan yihiin xaddiga shaqo la'aaneed. Tusaale ahaan shaqo la'aanta haddii Djibouti waxaa lagu qiyaasay boqolkiiba 60 sida lagu cadeeyay. dhibka ugu badan ee haysta Djibouti ayaa ah sicir barar ka dhashay lacagta franka markii loo bedelay doolarka Mareykanka ay saameyn ku yeelatay maadaama lacagta Djibouti ee frank ay tahay mid qaali ah waxaana halkaasi ka dhashay in uu yaraado maalgashiga taasoo ugu dambeyntii sababtay shaqo la'aan. Kenya waxay ka mid tahay meelaha ay ku badan yihiin shaqo la'aanta haysata dhalinta oo lagu qiyaaso in ay gaarayso boqolkiiba 17 sida la sheegay Bangiga Adduunka. Warbixinta waxay kaloo sheegtay in sanad walba ay suuqa soo galaan 800,000 oo dhalin ka soo qalin jebisay waxbarashada heerarkeeda kala duwan. Suuqa inta uu xamilo ayaa ah 625,000 oo shaqo cusub ah. Sidaas awgeed waxay noqonaysaa in loo waayo 175,000 oo soo dhameysay waxbarasho. Ethiopia guud ahaan shaqo la'aanta Ethiopia ayaa lagu qiyaasay 19.88 boqolkiiba. Shaqo la'aanta waxay hoos u dhacday 16.8 2015 markii loo eego 2014 oo ahayd 17.40. Sababaha ugu badan ee yareeyay shaqo la'aanta ayaa ah hal abuurka ganacsiga yaryar. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.